dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu isna magaalada caasimadda ee Muqdisho kulana kula qaatay safiiradaasi ka socda ururka Midowga Afrika waxaana uu kala hadlay horumarka Soomaaliya sidii uga qayb qaadan lahaayeen faafahinta warkaasina waxa inoo hayso wariyaheena Nasro Bashiir Cali 25 kan safiir ee ka socday Midowga Afrika oo maanta Muqdisho u yimid inay qiimeeyaan horumarka iyo nabadgelyada ka jirta Soomaaliya ayaa kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ay weheliyaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee magacaaban. kulanka ayaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka wada shaqeynada ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Midowga Afrika isla markaana ay laga maarmaan u tahay in Soomaaliya laga gacan siiyo inay gaarto isku filnaansho amni iyo mid dhaqaale. safiirada ka socday Midowga Afrika ayaa soo dhaweeyay horumarka amni dhaqaale iyo siyaasadda ay ku tallaabsatay Soomaaliya ee indhooda ku arkeen waxayna soo dhaweeyeen isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay sanadkan Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa ugu horreyn uga mahad celiyay Midowga Afrika kaalinta ay ka qaateen horumarka amni iyo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab isagoo cadeeyay in Soomaaliya laga caawin karo wax kasta ha yeeshee gacanta ummadda Soomaalida ay ku jirto xasilinta iyo horumarka dalkooda. ra'iisul wasaare Khayre ayaa tilmaamay in isaga iyo madaxweynaha qaranka ay ka go'an tahay inay ka dhabeeyaan isbeddelkii ka dhacay dalka iyo in dalka laga cirib tiro maleeshiyaadka nabadiidka Al-Shabaab iyo cid kasta oo khatar ku ah jiritaanka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.